caawa toddobaadkii tiknoolajiyadana waxaanu idinkugu haynaa waxaa ka mid ah shirkadda Uber oo la ganaaxay New Zealand oo loo diiday shirkadda mobilada Hawaii Shiinaha iyo qodobo kale waxa inoo haya Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir. shirkadda tagaasida Krayse ee Uber ayaa ay ganaaxeen dawladaha Ingiriiska iyo Hollandiisku milyan iyo bar dollar kadib markii ay xafidi waayeen xogta malaayin ka mid ah macaamiishooda. sanadkii hore ayay qirteen Uber inay $100,000 siiyeen budhcadda jabsata kombiyuutarada si loo tirtiro xog ay hore uga xadeen. New Zealand ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee diida sharikadda Shiinaha ee Hawaii in ay qalabayso shabakadda moobilkooda waxaanay u cuskadeen amnigooda qaranka inay uga warwarsan yihiin. hore ayaa Mareykanka iyo Australia ay u hor istaageen sharikaddani. Hawaii ayaa leh iyagu waxaanu wadnaa waa horumar iyo kalsooni. shirkadda gawaadhida heerka sare ee BMW ayaa soo bandhigtay gawaadhi cusub oo korontada ku socda iyo qaar kale oo iswada. bandhigga Los Angeles ee gawaadhida ayaa lagu soo bandhigay gudoomiyaha shirkadda Harald Kruger ayaa sheegay in gawaadhidooda elektrigii ay la tartami doonaan kuwa shirkadda Tesla. ugu dambayntiina makhaayad ku taala Nepal oo la yiraahdo Naulo ayaa waxay noqotay goob hooy u noqota digitalka. waa qalab casri ah oo shaashada ayaa dalabka ka samaysanaysa dabeetana robotyo ayaa dalabka ku keenaya oo ku adeegaya. robotyadu hadalka ay yaqaanaan inkastoo aanay sidii mutalabiinta u gacan fududayn.